maamulka degmada Dambale ee gobolka City ayaa ku howlan qorshe lagu ballaarinaya adeegga waraabka biyaha magaalada si wax looga qabto baahida sii kordhaysa ee bulshada. Magaalada Dambale ayaa muddo dheer ka cabi jirtay ceel hore oo loo dhisay iyo waliba biyo kayd qaadi jiray 25 mitir kiiba oo biyo. Si kastaba ha ahaatee kobaca magaalada iyo kororka tirada dadka ayaa sababay in baahida biyaha ay sare u kacdo, taasoo keentay in la qorsheeyo dhismo biyo kayd cusub oo awood u leh inuu qaado 100 mitir kiiba biyo ah. Hadda waxa naga dambeeyo oo socda waa kaydkii mataqaanaa waxa biyaha oo ka kooban ama qaadaya xajmigiisu 100 mitir kiiba lacag dhan 3 milyan iyo 900 kun baa ayaa ku baxaysa qorshahan. waxaan mataqaanaa waxaan ka fulinaynaa mashaariicaha BSMB horumarinta bulshada ee BSMB 5 si guud magaalada Dambale kulli waxa ka jira biyo mataqaanaa waxa yaraan ka jirta baahida koobaadna waxa weeyaan ceelka magaalada Dambale maadaama 1994 la qoday baaxadda bulshada ayaa ka ballaaratay. hadda muddo 2 bilood ka hor waxaan sameynay biyo gelin mataqaanaa waxa weeyaan ku xoojinayno beebashii hore ee aadka u yaraa 2 inji ah inaan bedelay sida ka mataqaanaa waxa weeyaan waanaad arki kartaan oo beebashii waxaan ka dhignay 3 inji taas micnaheedu waxa weeyaan qorshayaasha xukuumadda iyo xisbiga laga jawaabay baahiyaha mataqaanaa horumarinta aasaasiga ee dhanka bulshada biyuhuna waa nolosha koowaad. dhanka biyaha marka la eego magaalada Dambale waa wali maadaama bulshadu ay ka badan tahay mataqaanaa waxa weeyaan baahideedu waxayna u baahan tahay biyo ballaaran. biyo ballaarin loo sameeyo iyo ceelal bay u baahan tahay. marka si hor dhaca kaydkan waxaan ugu talagalnay inuu micnaha mataqaanaa waxa weeyaan wax ka taro baahida bulshada ee ka jirta dhanka kayd yaraanta waana 100 mitir kiiba. sidoo kale maalmo dhaweyta mataqaanaa waxaan dhagax dhignaa Raabi xarunta Raabi kayd sidan oo kale ayadana maadaama meelaha biyo yaraantu ay ka jirto qorshaha xisbiga iyo xukuumadda oo qaadatay ka degmaana waxaan qaadanay in miisaaniyadda la ururiyo oo aan la firdhin si micnaha adeegga bulshada ay wax uga tarto baahidu mataqaanaa waxay hadii la firdhiyo miisaaniyaddu baahi joogto ah bay noqonaysaa.